Asalaamu calaykum. Halkaan waa Ugaal HD. Saaxiibayaal, maanta waxaan idin wadaa barnaamijkeennii halxiraalayaal qaybtiisii shanaad. Horey waan usoo sameynay qeybaha ka weerayay. Maantana waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo qaybtii shanaad. Jawaabaha waxaad ka heli kartaa description-ka. Waxaan ka codsanayaa ka hor intaadan eegin description-ka inaad isku daydo inaad ka jawaabto su'aalahan. walow ha ahaadee keliya hal xabo ka tirsan. waxaad ugu soo jawaabaysaa commentiga hoos. Ka hor intaanan gelin muuqaalka, haddii aad ku cusub tahay channelka, nagu soo bir adigoo taabanaya calaamad subscribe-ka. Sidoo kale fura gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelinay channelka. Aan hore u galno, kusoo dhawaada mawduuceena maanta. nin salaad dukanayo ayaa markii uu dhanka midig assalaamu calaykum u yiri waxaa ka jabtay weysadii. Markii uu dhanka bidix u yirina waxaa ku waajibay faral. Markii uu hortiisa fiiriyeyna waxaa ka furantay xaaskiisa. Haddaba sheeg sababta. Waxaad sheegtaa noolaha marka uu yar yahay 4 ku socda, markuu weynaadana 2 ku socda, markuu gaboobana 3 ku socda. Nin ayaa waxaa la weydiiyey aaway Xasan iyo Jaamac. Markaasuu ku jawaabay Xasan wuxuu taagan yahay Jaamac gadaashiisa, Jaamacna wuxuu taagan yahay Xasan gadaashiisa. Haddaba sidee arrintaas ku dhici kartaa? Waxaad sheegtaa qof ay hooyada iyo aabbaha ay dhaleen haddii aanan ahayn walaalkaada ama walaashaada. Waa kee xayawaanka loogu yeero 3 magac? Sheeg suurad ka mid ah Quraanka oo aayad kasta oo ka mid ah suuradaas ay ku jirto ereyga Allah. Waxaad sheegtaa cayayaanka biyaha ku dhasha, biyahana ku dhinta. Waxaad sheegtaa kiilo suuf iyo kiilo bir ah kee culus.